waxaa si istaba jooga baryihii lasoo dhaafay qaybo ka mid a dunida uga dhacayay munaasabado lagu maamuusayay maalinta xasuuqa ogaadeeniya oo ah maalin loo calaamadeeyey ogaanshaha xasuuqii shacabka Soomaalida ogaadeeniya. waxaa si nabad ah kusoo dhammaatay munaasabad ballaadhan oo dib loogu xasuusanaya xasuuqii baasanaa ee kooxdii TPLF ay u geysatay shacabka Soomaalida ogaadeeniya, taasi oo ka qabsoontay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. munaasabadan oo muddo socotay ayaa ku dhammaatay si nabadgelyo ah iyadoo kasoo qaybgalayaasha ayaa aad uga murugoodeen gabadfalkii xumaa ee dadkooda loo geystay. waxaa sidoo kale galabnimadii shalay ahayd si nabad ah uga soo dhammaaday munaasabad ballaadhan oo ay isugu yimaadeen xubnaha faraca daryeel ee ka howlgala degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya. munaasabadan oo lagu maamuusayay maalinta xasuuqa ogaadeeniya ayaa kasoo qaybgalayaasha dib loo xasuusiyey hooggii iyo hiiritaanyadii ay kooxdii TPLF u geysatay shacabka Soomaalida ogaadeeniya. munaasabadan ayaa goor dambe oo xalay ahayd ku dhammaatay si nabadgelyo ah iyadoo kasoo qaybgalayaasha wejiyadooda laga dheehanayay muruga badan. sidoo kale waxaa si nabadgelyo ah kusoo dhammaatay munaasabad aad looga shaqeeyey oo lagu xusayay maalinta xasuuqa ogaadeeniya Ogaden Massacre Day oo ka soconaysay degmada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dalka Soomaaliya. munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa daayarta waxaa lagu barayay taariikhdii madoobeyd ee taliska TPLF uu soo mariyey shacabka dulman ee Soomaalida ogaadeeniya. sidoo kale munaasabadan ayaa loogu duceeyey dadkii shacabka ahaa ee taliskii TPLF uu xasuuqa u geystay, iyadoo kasoo qaybgalayaashu ay wacad ku mareen inay xasuusnaan doonaan dhibkii shacabkooda loo geystay. muddo dheer kadib waxaa si nabadgelyo ah ku dhammaatay munaasabadii lagu maamuusayay maalinta xasuuqa ogaadeeniya ee magaalada Boosaaso ka dhacday. sidoo kale waxaa kulan baroor diiq ah isugu yimid xubnaha jabadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ee degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya. munaasabadan ayaa ku bilaabatay iftiiminta taariikhdii mugdiga ahayd ee taliskii TPLF uu mariyey shacabka Soomaalida ogaadeeniya. bisha Febraayo ayaa ah bil loo madlay xuska maalinta xasuuqa ogaadeeniya Ogaden Massacre Day si aysan daayartu u hilmaamin gabadfalladii ka dhacay dhulkooda ee Somali State. waxaa maanta barqinkii kulan ballaadhan isugu yimid xubnaha jabadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ee degmada Fiiqi xarunta gobolka Erar. kulankan oo ahaa mid lagu maamuusayay maalinta xasuuqa ogaadeeniya ayaa ka qabsoomay bartamaha degmada Fiiq, waxaana munaasabadan kasoo qayb galay xubno ku labisan maryo muujinaya xasuuqii shacabka Soomaalida ogaadeeniya loo geystay. munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada OYSU ee magaalada Fiiq ayaa laga akhriyay taariikh koobaysa tacadiyadii shacabka Soomaalida ogaadeeniya loogu geystay gudaha dhulkooda. munaasabada oo muddo socotay ayaa kusoo gabagabowday jawi nabadgelyo ah. shirkii guddiga fulinta iyo guddiyada gobolada ee Jowxo guul kusoo dhammaaday. waxaa goor dhow oo maanta si habsami leh kusoo dhammaaday shirkii guddiga fulinta ee Jowxo iyo guddiyada gobolada oo ka socda xafiiska Jowxo gobolka Faafan. shirkan oo ahaa mid muhiim ah ayaa si toos ah loo kala warqaatay, waxaana si toos ah loo gudagalay ajendayaasha shirka oo ah kuwo guda ballaadhan, falanqayn dheer iyo doodo adag kadib. guddiga fulinta ee Jowxo iyo maamulada gobolada ayaa isla qaatay qorshayaal maangal ku ah dardargelinta xisbiga Jowxo. waxaa si guul ah kusoo dhammaaday shirkii unugta jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ee degmada Garbo, kaasoo ka qabsoomay xafiiska Jowxo degmada Garbo. shirkan oo ahaa kii caadiga ah ee toddobaad kasta ka qabsoomi jiray ayaa lagu furay aayado ka mid ah Quraanka Kariimka iyo wacdi diini ah, waxaana maamulka xafiiska warbixin siiyeen xubnihii ka soo xaadiray. xubnahan ayaa dhankooda su'aalo weydiiyey maamulka unugta iyagoo oo sidoo kalena talooyin wax ku ool siiyey. isku soo wada duuba waxaa si nabadgelyo ah kusoo dhammaaday shirkii unugta Jowxo degmada Garbo. waxaa si qurux badan usoo dhammaaday kulan heer sare ah oo ay isugu yimaadeen guddiyada Jowxo ee xaafadaha magaalada Qabri Dahar iyo guddiga xafiiska Jowxo gobolka Qorraxay. kulankan oo ahaa mid lagu shaqo qaybsanaya ayaa guddiyada xaafadaha lagu siiyey warbixin dhammaystiran iyo weliba qorshayaal sare loogu qaadayo shaqo maalmeedka guddiyada hoosaadyada. sidoo kale guddiyada xaafadaha ayaa laga dhageystay
warbixino ku saabsan goobaha ay ka howlgalaan iyagoo dhanka kalena laga dhageystay talo bixino wax ku ool ah. falanqayn dheer kadib waxaa si guul ah ku soo dhammaaday shirkii ay isugu yimaadeen horjoogayaasha xaafadaha magaalada Qabri Dahar iyo xafiiska Jowxa gobolka Qorraxay.